faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo iyo sidoo kale gudaha magaalada Baydhabo. Wararka na soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan kuwa daacadda u ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynihii sida xoogga xukunka loogala wareegay ayaa waxa weerar saaka aroornimadii hore ay ku qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya oo ku yaalay nawaaxiga Iidow ee duleedka magaalada Baydhabo. waxaana ciidanka daacadda u ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen la sheegayaa inay la wareegeen ilaa 3 xero oo ay horay u deganaayeen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya. waxaana ciidamada Laftagareen ay sheegeen in halkaasi ay ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo sidoo kale hub aad u fara badan gacantana ay ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk Soomaaliya iyaga oo sheegay inaysan ugu yeeri doonin maxaabiis dagaal laakiin ay yihiin wiilal dhalinyaro askar Soomaaliyeed oo qaab qaldan markaasi loo adeegsaday ayna daryeeli doonaan. weerarkan gaadmada ah ee saaka aroornimadii hore ciidamada daacadda u ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay ku qaadeen deegaanada hoos yimaada Iidow ee fariisimaha ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya kuna yaala duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii shalay ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan kuwa Harmacad gudaha magaalada Baydhabo ay ka sameeyeen fal ay si weyn markaasi uga naxeen dadka deegaanka isla markaana carab weyn ku abuuray ayaa kaasi oo ahaa in ciidamada Harmacad ay bilileqaysteen maalin cad haweenka ka ganacsada jaadka sidoo kalena ay dhaceen goobo ganacsi. ciidanka daacadda waa Laftagareen ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin dhibaatada iyo tacadiyada lagu haayo dadkooda isla markaana ay soo gabagabayn doonaan maalmaha soo aadan kadib weerarka saaka aroornimadii hore duleedka magaalada Baydhabo ay ku qaadeen ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka taagan xiisad aad u xoogan taasoo u dhaxaysa ciidamo horey uga haray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo kuwa markaasi ka yimid dhinaca Buur-Hakaba oo ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo iyo ciidanka booliiska gaarka ah ee Harmacad. xiisadan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii shalay ciidanka Harmacad ay dhibaateeyeen dadka shacabka ah ee magaalada Baydhabo. ciidankan gudaha magaalada Baydhabo ku sugan ee ka soo horjeeda kuwa Harmacad ayaa waxa ay sheegeen in gabi ahaanba aysan doonaynin in Harmacad ay sii joogaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaana loo baahan yahay in gabi ahaanba ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa Harmacad iyo booliis militaro laga saaro magaalada Baydhabo dibna loogu celiyo magaalada Muqdisho iyo goobihii horey markaasi loogu keenay iyaga oo sheegay in dhibaatada iyo tacadiyada lagu haayo dadkooda aysan u dulqaadan doonin. magaalada Baydhabo ayaa muddo 7 sano kadib waxa ay wajahaysaa falal amni darro kuwii ugu xumaa iyo sidoo kale tacadiyo loo geysanaya dadka shacabka. ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaana waxa ay sheegeen in saacadaha soo socda ay la wareegi doonaan magaalada Baydhabo gudaheeda. afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan garabka Cabdicasiis Laftagareen ninka lagu magacaabo Xasan Maxamed Xuseen Ugaas ayaa waxa uu sheegay in ciidankooda weerarkii saaka ay guulo waaweyn ka gaareen saacadaha soo socdana ay gali doonaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. guud ahaan Koonfur Galbeed ayaa wajahaysa xiisado dagaal iyo sidoo kale mawjado colaadeed oo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan iyada oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo xileedkeeda uu dhammaaday iyo sidoo kale ciidamada daacadda u ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay si weyn ugu loolamayaan gacan ku haynta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ciidanka Laftagareen ayaa weli markaasi abaabul iyo diyaargarow ka wada duleedka magaalada Baydhabo waxaana saaka weerarkii ay qaadeen wahaa sida ay sheegeen barbilowga dagaal ballaaran oo ay doonayaan in Baydhabo iyo Koonfur Galbeed guud ahaanba ay kaga xoreeyaan